kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha badan ee ku xiran janaalkeena Nuxur TV kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa dhacdo cajiib ah oo kuwaana qaadasho ah dadyooga muslimiinta. Inta aan muuqaalka u guda galin saaxiib, waxaan ku xasuusinayaa inaad janaalka rukumato oo subscribe saarto, gambaleelkana furato, muuqaalkana like garayso sida uu saaxiibadaada kale u gaaro. واركم عصنتها داوشة قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال. warbixintan aan maanta idin soo gudbinayo waxa ay la xiriirtaa haweeney wadnaheeda uu yahay qalab macmil ah oo ku nool wadanka UK. Salwa Hussein waa hooyo leh 2 caruur ah oo 39 jir ah. waxay noqotay qofkii labaad ee abid Britania lagu siiyay qalab macmil oo wadnaha ah oo ay ku ilaashanayso nafta muxtarimka ee aadmigu leeyahay. hooyadan 39 jirka ah ayaa dhawaan howlgal nafadbaadin oo lagu sameeyay ayaa waxa lagu geliyay wadna macmal ah kadib markii wadnaheedii ay xumaadeen. gudaha Salwa boorsada ay dhabarka ku wadato waxaa ku jira batariyad, matooro koronto ku shaqeeya iyo bam hawo ku riixaya tubooyin si ay ugu shaqeyso qolalka balaastiga ee xabadkeeda. When my daughter was 6 months old, I got severe water retention, and then the chest pain started and the breathing problems and the symptoms, and I was really worried because I had a feeling it was something serious. They told me that I would need a heart transplant, but I was so unwell for a heart transplant that they had to give me a total artificial heart. dhacdadan xanuunka leh ayaa Salwa ku bilaabatay 6 bilood ka hor. markii ay dareentay neefsasho daran ayaa waxa ay kortay gaarigeeda, waxa ayna riixday ilaa 20 yardi si ay u aragto dhakhtarka qoyskeeda oo jooga Kalihayli Essex. halkaas kadib waxaa loo diray isbitaalkeeda maxalliga ah oo ku yaala magaalada London, kaasi oo sheegay inay la ildaran tahay wadna xanuun daran. 4 maalmood kadib waxay ku jirtay isbitaalka Harefield ee adduunka caanka ka ah, halkaas oo loola cararay ambulance iyadoo dhaqaatiirta wadnaha ay u dagaalameen in ay sii noolaato. siday aaladan u shaqeyso ayaa 2 tubo oo waaweyn oo balaastiga oo ku xiran boorsada kuwa oo gala jirkeeda badhanka caloosha, waxayna u safraan laabta. waxay markaa ka buuxiyaan 2 buufin oo ku jirta gudaha godkeeda xawadka hawo oo ku shaqeysa sida qolalka wadnaha dhabta ay dhiigga ugu riixaan jirkeeda. Salwa oo aad u xanuunsanaysay si ay u sii noolaato ayaa lagu caawiyay mashiinkan oo keenay in lagu sameeyo qalliin wadnaha looga bedelayo, sidaa darteedna ay nolosheedii sii dawargo'aysay. waxaana markaa ogolaasho laga helay ninka ama sayga ay u dhaxdo oo ka codsaday dhaqaatiirta in loo geliyo wadna macmala. wadnihii dabiiciga ah ee ku jireen Salwa waxaa ka saaray dhaqaatiirta qalliinka, waxaana loogu bedelay qalab farsamo lagu sameeyo iyo qaybta takhasuska ee dhabarkeeda. boorsada Salwa waxay ka kooban tahay 2 nooc oo batariyada si ay u xoojiso matoorada, waxayna haysataa qalab labaad oo hoygan ugu jira shandada haddii uu dhib dhaco. Salwa waa inuu la joogaa daryeelo kale had iyo jeer. haddii musiibo dhacdo waxay haystaan 90 ilbiriqsi si ay ugu xiraan mashiinka kaydinta. Salwa waxay haysataa bilooyin si ay ula qabsato oo ay ugu soo noolaato wadnaha macmilka ee boorsada ugu jira. wuxuu ku wareejiyaa dhiigga jirkeeda 138 garaac daqiiqadiiba qaafiyad, taasi oo keenta laabta in ay gariirto. waxaa jira dhawaaq bambooyin iyo buuq joogto ah oo ka imaanaya matoorada boorsada jeexjeexan ee xidhata ee ku jira markii ay baxayso ama markii ay guriga ka tegayso. dhakhtarka qalliinka ku sameeyay oo lagu magacaabo Mr. Simon waxa uu yiri qalliinka si fiican ayuu u dhacay. soo kabashadeeda Salwa waxa ay noqotay mid heer sare ah. kaliya hal qof oo kaliya oo ku nool Ingiriiska ayaa guriga la aaday qalab macmil ah. waxay raacday qalliinkii labaad isbitaalka Babworth sanadkii 2011. waa inaan Allah uga mahadnaqnaa daqiiqad kastoo aan ku jirno meesha ugu sareysay caafimaadkeena iyo qabkeena. dhammaan aamin Allah salawaatullah, isaga waa kun ugu naxariista badan iyo kan ugu daryeelka badan dadkiisa. guud ahaanna warbixinta idin soo diyaarinay saaxiibayaal, maantana waa naga intaa. fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar, gambaleelkana furo si aad ula socoto warbixino aad ku xiiso geliya noloshaadana wax badan ka bedela. mahadsanidin.